ballaarin isbeddel iyo horumarin ayaa lagu sameeyey leerarka cadceedda ku shaqeeya ee Muqdisho. Ammaanka iyo bilicda caasimadda ayay qayb muuqato ka qaadanayaan xilliga habeenkii ah, waana sababta ay bulshada qaybaheeda ugu caweynayaan wadada hareeraheeda. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maasha Allah. Meeshaan markay mugdiga ahayd dadka maritaankiisu dhibay ku ahayd, xaafadda dhibaan ugu qabnay. haddana iftiin hadda waa la dareemi karaa mugdi iyo iftiin waa labo kala aad iyo aad u kala wanaagsan xagga amniga xagga dadka isu socodkooda xilliyada 2 saac 3 saac wadada waa laga kala leexan jiray hadda waxa waa ilaa 6 saac ilmiya iska dhex taagan waa ugu mahad celinaynaa intii meeshaan howlwadeen ka ahayd intii wax ka qabatay intii wax ku bixisayba runtii ramadaankan iftiinka meeshaan ka baxay wax la xisaabi kara ma aha marka hore ilaa iyo fiidka hore marka la joogo kadib waa la iska kala xaroon jiray hadda ilaa 6 saac 7 saac laamiga la taagan yahay ilmihii banuuniga ku ciyaarayaan dadkii odayaashu way soo baxayaan meesha la iska imaana waa la iska sheekaysanaa taasna waxa keentay iftiinka keenay gobolka Banaadir waa u mahad celinaynaa maadaama magaalada ay dansaneed maanta uu fi bilicda soo baxday leerarkan muhiimad badan ayaan u leenahay waayo waa ku cabaynaa waxbaan ku baranaa amnigana waa uu ka mid yahay magaalada dansan oo mugdi ah cid soconaysa cid maraysa maaha laakiin gobolka Banaadir waa u mahad celinaynaa halkee baltiif asigana uu mahadsan maadaama magaaladii bilicdeedii iyo habsami socodkeedii haddana leerarkan oo ku faraxsanahay waana horumar aan gaarin weyn Allah isku bedelay horta mugdi iyo iftiin isku meel ma aha waan ku faraxnay markaan leerarkan noo keenay aan aragnay ma sha Allah muhiimad weyn oo ka tahay wadanka dadna waxbay ku bartaan dhalinyarada dadna oo ku cabayaan waa mid ka mid ah darwalada ka shaqeeya bajaaj waxaan saaranahay bajaajteedii gudaheeda mid ay ugu wareysanayso wallahi waa kulli arrin aad u wanaagsan waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato su'aasha ay weydiinayso waxay ku saabsan tahay leerarka dabcan leerarka wax weyn bay ka taraysaa marka laga hadlayo leerar habeenkii bay shaqeeyaan maalinta kuma jiraan annagu awal maalinta shaqaysan jirnay habeen maan shaqayn jirnay xilliga habeen haddii la gaaro maqrib wixii ka dambeeya xoogaa cabsida macnaa mugdi waxbaa jiray lama socon karin hadda laakiin waxaa lagu dhiiranayaa ilaa habeenkii saqda dhexe 6 saac 7 saac ilaa ay waaga xitaa intuu ka baryo inaan shaqeeyo laba gelin hadda isu shaqeeya aniga maalintii 12 ilaa 12 haddana habeenkii ilaa waxaan gaaraa 6 saac maadaama waqti ramadaan lagu jiro maamulka gobolka Banaadir ayaa xil iska saaray in aysan damin leerarka cadceedda ku shaqeeya ee bartamaha magaalada iyo hareeraheedaba ka taagan maamulka gobolka Banaadir waxa uu isbeddel ku sameeyay hanaankii uu shaqeyn jiray leerarka cadceedda ku shaqeeya ee bartamaha magaalada ka qotoma nidaamkii ku shaqeynayay wuxuu ahaa nidaam leerarkaas ifka ay bixinayaan uu yahay mid cadaan ah balse haatan ay u bedeleen nidaam cusub oo leerarka ay ku shaqeynayaan if casana si ayna Muqdisho aanay uga harin tartanka ay ku jiraan caasimadaha dunida sidoo kale waxa uu maamulka gobolka Banaadir uu noo sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay xaqiijin doonaan in Muqdisho iyo hareeraheedaba ay ka hirgelin doonaan leerarkan casriga ee casaanka u shaqeynaya